We the best. Another one. تتعدى. Always remember, it's lion order. Lion! السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا محمد حسن يوتيوب كداون سنة another one تتعدى. مال والبعد دنيا كجبتان يسول بمقال كيجا. iyo muuqaalkayga idin soo gaardo niyad samiye kalgacal ugu soo dhawaad kuma santiin daawashada fiidiyoda aan soo geli sida caadada iyo dhaqankeedna ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo maanta liicaato oo ugu dambeyn gaaray dalka Turkiga gaar ahaan Istanbul ayaa lagu soo dhaweeyay liicaato ayaa babilii la soo dhaafay ama maalmihii la soo dhaafay laga sugayay in uu gaaro dalka Turkiga gaar ahaan Istanbul mar ayaa baajiyay coronavirus markii laga helay test positive hadda wuu caafimaaday kadibna wuxuu gaaray Turkiga soo dhaweyn qurux badan ayaa halka loogu sameeyay maxaa yeelay waxa halka ku sugan youtuber badan oo Soomaaliyeed oo maalmahan ama bilii la soo dhaafay halka ku sugnaa waxa jooga meeshaasi Yaxya Xantar oo kale waxa joogo Abwaan Geesi Rashka Boy Galaan Baazu iyo qaar kamid ah youtuberada Soomaaliyeed runtii looma kala harin soo dhaweyntiisa marka qaabka loo soo dhaweeyay liicaato ayaan isla daawanaynaa okay Marshaka qashkiyo waa aragtaan liicaato wuxuu ka soo dhamaaday check upkii iyo howlihii dhan wuxuu soo gaaray meeshii lagu sugayay ama lagu soo dhaweyn lahaa waxa ka hor tagay wiil boorsadii uu ka soo qaaday wuxuu u soo socdaa dadkii meeshii u taagnaayeen ay ku wada sugayeen okay Legend of Legend ugu dambeyn respect wanaagsan ayuu sameeyay wuxuu ka bilaabay kaashay oo ah nin u naafooway dalka Soomaaliyeed oo kamid ah ciidamada dawladda oo naafo ah oo kursi fadhiya ayuu ka bilaabay hab ayuu nasiiyay Legend of Legend liicaato qofka markuu uu yahay qalbi wanaag waxa ku fahmay waxa meesha ka soo qayb galay laba kamid ah wiilal Soomaaliyeed oo lixaadkooda aan dhameystirneen midna wheelchair ayuu ku fadhiyaa midna bir ayuu ku boodayaa oo lug ayuu ka go'an yahay marka qofka markuu qalbigiisu uu yahay qalbi nadiif waxa dareemaysaa mar walba wuxuu respect gareynaa dadka naafada ah dadka masaakiinta ah dadka dhibaatada ka muuqato kadib ayuu u gudbaa dadka asiga oo kala ah marka taas ayaa waxa ku cadeynay ninkan liicaato yiraahdo inuu yahay qof wanaagsan qof qalbi wanaagsan leh qof dabeecad leh qof qosol badan liicaato Legend of Legend وجدي نينكي قبوه كعبادو يا هاد الليبل الجاري يا كوبي لبي جوجا هاد لو سود جا قبوه كعبنو يا نينكي liicaato وحالي يري ما انت بقرون تاي ما المدرنا سو صعدا yahay liicaato ninka kaliya iga caasay صاحب qaali wala qaali hadaad ugu ogay nin madow warwaan cadaaday oo hadal ku yahay wax yar baan hadal ku saaxiibkay cabdi dhaato ka sokeeya Abwaan Geesi dheelo bilaabo wuxuu taagan ninka kaliya ee iga caansan liicaato hadaa ogeed inaan ahaa qof madow wada waa cadaaday ninka cabdi dhaanta xoogaa u soo jiraa runtii Abwaan Geesi wuxuu kamid yahay asigana dadka ugu qalbiga wanaagsan youtuberada Soomaaliyeed intaan ka arkayay sababtoo ah waa nin mar walba wanaag ku hadlo waa nin mar walba dhoola cadeynaya marka Rashka Sharma Boy yiri
ragga libintooda waa loo qiraa hadalkana soo xiraa ya ninka la yidhaahdo kaashi soo gal waxay ka mid yihiin inta waxay kuu soo istaageen oo u yimaadeen inta waxay u yimaadeen waa jacayl ay kuu qabaan ku soo dhawow hantola kuu roon yahay turkiga istanbul iyo dadku jecel walaalo ku jecel oo qalbiga hantola kaa jecel oo dhaxanta kuu soo istaagay والله قلبي قاعد يجعنا والله سؤالي قلبي انا كان ما شاء الله waa ka sidaasay u dhacday soo dhaweyntii lii caato oo looma kala harin waa laga wada qayb galay dad xataa sheeganaya waa maqlayseen aan weligood istanbul intay istaageen garoonka diyaaradaha aanan dad soo dhaweynin ayaa lii caata dartiisi u tagay okay horta hadda waxaa jirta dunida khatar caafimaad in dadka ay sidaan isku soo dhex galaan naftirkeeda ma wanaagsan waxaa wanaagsan in qof walba uu ilaaliyo caafimaadkiisa taas markaa kasoo gudubno horta turkiga maxay faa'iido u tahay maxayse khasaaro u tahay dadka soomaaliyeed maxaa waayadan ugu dambeeyey loogu qulqulooyaa turkiga turkiga horta runtii laba faa'iido ama laba jaanisba way u tahay dadka soomaaliyeed weliba gaar ahaan kuwa youtuberska labada faa'iido ee u tahay waxaa waaye horta turkiga wuxuu ka mid yahay dalka yurub dalalka yurub la yiraahdo ka mid yahay runtii waa waddan qurux badan maciishadiisa jaban tahay guryihiisa ay raqiis yihiin nolosha muqdisho iyo nolosha turkiga farqi weyn xagga dhaqaalaha uma dhexeeyo isticmaalka qoyska turkiga ay ku isticmaalayaan isticmaalka qoyska soomaaliya isticmaalayaan waa isku mid marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha waxaa dheer caafimaad inaa helayso waxaa dheer inaa amni helayso waxaa dheer in aad dal qurux badan oo waxaad doonto ku samaysanaysa aad joogto waxayna faa'iido ugu jirtaa weliba youtuberska soomaaliyeed waxay helayaan adress ay ku xirtaan kaar bangi hadhowdii lacagta ku qaataan ayay helayaan kafiil badan lagama sii aan doono waxay helayaan oo kale meelo qurux badan dalxiisyo qurux badan gobolo dhan oo tiro badan oo xeebo qurux badan leh antalyaspor oo kale izmir oo kale meelo badanna way helayaan oo ay ku duubtaan barnaamijyadooda iyo wixii markaasi ay isleeyihiin dadka idinku xiran u gudbiya runtii turkiga wuxuu ka mid yahay dalalka hadda ugu dalxiiska badan qaaradda yurub weliba looga kala yimaado caalamka marka sidaas darteed soomaalida waxaa ugu jirta inay helayaan dhakhtar wanaagsan qaliin ku samayn kara wax walbo caafimaadka xaggiisa check up gumbi wax walbay dhammaystiran ay heli karaan sidaa idin sheegay cuntadeedu waa rakhiis dad magac leh oo sheefaf adduunka laga yaqaano maqaayadooda ayaa tegaysaan oo inta badan social media ayagaba caanka ah ma la qiyaasi karo haddii gurigii rakhiis ku yahay adress aa helaysid hadhowdii kaar bangiya lacag ku qaadata helaysid meel qurux badan aad joogtid inta badanna qawowga uu ku yaryaa meelaha gobolada qaar oo orax aa helaysid xeebo qurux badan aa helaysid ammaan ah jaaniska intaas la eg ayay dalka turkiga soomaalida u tahay weliba hadda waxaan u maleynayaa in si fudud lagu imaanayo oo sidii hore ay xoogaa ka dabacday maxaa yeele qulqul badanaa la dareemaa galabakaara ee naqatay meesha soomaalidu way ku qulquleen soomaalida meesha wax loogu sheegana way wada aadaa haddana ayagaa hadhoodii laga yaabaa inay dhibaato isku noqdaan waxyaalo badan oo soomaalida laaluushka oo kale haddaba waxaan maqlayaa warqadihii dalku jooga in lacaga lagu sameeyo oo laga yaabaa inay dowladda xataa wax ka ogeyn soomaalida dhexdooda wakiilo ay isku dirsadaan anaa soo dhammaynayo warqadaas iyo lacagta intaasaa la rabaa iyo marka turkiga jaaniskaas ayuu u yahay soomaalida weliba gaar ahaan youtuberska inta ka dhiman youtubers magaalada muqdisho joogto waxaan leeyahay jaaniska turkiga ka faa'iideysta waa meel ku habboon waxqabadkiina iyo horumarintiina inaa kusii wadataan maadaama uu yahay waddan wanaagsan soomaalida laga jecel yahay aan lagu dhibaateenin lagu dhibin waa dad muslina ay joogaan marka intaasoo dhan oo jaanis ayuu leeyahay marka waxaan leeyahay ka faa'iideysta jaaniskaas iyo idin dhaafin haddaad tihiin soomaalida gaar ahaan youtuberska
kolley Malaysia qaar ka mid ah hadda inay sii aadi doonaan aan jeclahay oo dad badan ay shanshadahooda u xiran yihiin inta weli xirxiranina ha xirxirataan leeya turkiga ha laga faa'iidaysto adigoo dan kuu yahay oo danahaaga ku fushan doontid tan iyo kulantideena dambe waa tiiti cadoo idin le nabad